Aminta dib hay waraysada daawadayaal halkani waa KOW TV ku soo dhawaada war wixii aanu caalamka idiga hayno wii tibin doono aniga Cabdiraxmaan Xuseen qodobka maanta ugu weyn warkan idin haynana waxa uu yahay xaaladda dalka Iran ayaa haatan mid aad u kacsan kadib markii ay dalkaasi ka qarxeen barnaamijyo ballaaran oo ka dhara xukuumadda talada haysa barnaamijyada oo bilowday dhamaadkii sanadkii hore ayaa salka ku haya xaalad dhaqaale oo aad u liidata sicir barar sare shaqo la'aan baahsan iyo hoos u dhac weyn oo ku yimid qiimaha riyaalka ee dalkaas shacabka Iran gaar ahaan dhalinyarada iyo ardayda ayaa muujinaya cadho xooggan ay ka qabaan nolol maalmeedka adkaada iyo xaddidaadda siyaasadeed ee dalkaasi ka jira dowladda Iran ayaa si adag uga jawaabtay barnaamijyada iyadoo adeegsatay ciidamo amni iyo awood militari taasoo keentay dhimasho dhaawac gaadhay 100 qof halka kumanaan kalena la xidhay ururada xuquuqul aadamaha ayaa sheegay in khasaaraha dhabta ahi uu ka badan yahay inta ay dowladdu qoratay sidoo kale xukuumaddu waxay jartay internetka iyo isgaarsiinta si ay u xakamayso isku xidhanka barnaamijyada iyo faafinta wararka gudaha iyo dibadda dhanka kale dowladda Iran waxay ku andacoonaysaa in barnaamijyada ay ka dambeeyeen quwado shisheeye waxayna sheegtay inaysan ogolaan doonin waxay ku tilmaantay khalkhal qami oo dalkaasi lagu burburinayo madaxweynaha iyo hoggaanka sare ee dalka ayaa ku baaqay in la ilaaliyo midnimada qaranka balse isla markaasna ku guudiyeen si adag loo tacaali doono cid kasta oo kala hor timaada nidaamka xaaladda Iran ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay gobolka caalamka iyadoo dalal badan ay muujiyeen walaac ku saabsan rabshadaha socdaha iyo mustaqbalka xasiloonida bariga dhexe guud ahaan Iran waxay wajahaysaa mid ka mid ah marxaladihii ugu adkaa ee siyaasadeed iyo dhaqaale ee sanadadii ugu dambeeyay taasoo indhaha dunida oo dhan ku soo jeedisay halka uu dalku u jahaysan doono maalmaha soo socda daawadayaal intaa waxaa ku dhawr xeer caalamka idiga hayna wii tibin aniga Cabdiraxmaan Xuseen waxaad kala socotay KOW TV wararka xiga ee soo socda inta ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo